kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta anaga daawanaysaan kusoo dhawaada wararka maanta ee Samareeb TV. Qodobada wararka Samareeb TV ugu door koranaya waxaa ka mid ah saraakiisha ciidamada diiday muddo kororsiga oo go'aan cusub soo saaray. Muxuu amiirka dalka Qatar xalay kala hadlay madaxweyne Farmaajo taliye xijaar oo soo saaray amar ku socda ciidamada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xariga ka jaray taawarka loo dhisay garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo. WHO oo sheegtay in 35 bilyan oo dollar uu u baahan yahay si dalalka hooseeya ay u helaan talaalka COVID-19. daawadadan ugu cusubtahay naga soo biir subscribe sar gambalelkana fur like-tana ha ka reebin saaxiibadan la wadaag si ay ugu noqdaan saaxiibada cusub ee naga soo biiraya. waa maalinimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha May 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada badbaado qaran ee ka dhashay muddo kororsiga dowladda ayaa shalay ku shiray magaalada Muqdisho waxayna soo saareen dhowr qodob oo muhiim ah sida aan xogta ku helnay. saraakiisha ay ka mid yihiin Inda Cadde, Sanay Cabdulle, Saadiq John, Cabdimalik Ismaaciil iyo Cusmaan Xaadoole ayaa isku raacay in la dhowro amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha ay kaga sugan yihiin lana xaqiijiyo inaysan ka dhicin xabad iyo wax kasta oo shacabka dhibaato u geysan kara. sida ilwareedyo u sheegeen warbaahinta, saraakiisha ayaa sidoo kale isku raacay inaysan ka bixin goobaha ay kaga sugan yihiin magaalada Muqdisho ilaa ra'iisul wasaare Rooble uu ka qaado tallaabo muujinaysa in lagu kalsoonaan karo. waxayna ka dalbadeen inuu bedelo taliyaasha ciidamada dowladda ee ku lugta lahaa dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho 25 Abriil. saraakiisha ayaa sheegay in caqliga saliimka ah uu diidayo in ciidamada militariga ee sharciga ilaalinaya dib loo hoos geeyo taliyaal ay dagaalameen oo ay cadaawad kala dhaxayso kuwaas oo dib u beegsan kara. waa sida hadalka loo dhigay. waxay sheegeen in ka hor inta aanay ciidamada ka saarin caasimadda ay muhiim tahay in la hubiyo in ra'iisul wasaare Rooble uu daacad ka yahay dadaalada uu wado iyo inuu yahay nin fulinaya aragti uu Farmaajo u soo dhiibay oo gadaal laga mamalayo taasi oo lagu argudanayo ciidankii ka hor yimid muddo kororsiga. waa sida hadalka loo dhigay. ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay amartay in lagu joojiyo mishaarka ay qaataan ciidamadii iyo saraakiishii ka mid ka noqday ciidamada diidan muddo kororsiga islamarkaana ka qayb qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho. amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani ayaa xalay qadka teleefanka wada hadal kula yeeshay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay shaacisay wakaalada wararka ee Qatar. intii uu socday wicitaanka waxay dib u eegeen xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah iyo hababka sare loogu qaadi karo looguna horumarin karo. waxaa taas dheer inay ka wada hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka. wakaalada wararka Qatar ma bixin faahfaahin intaasi dheer oo ku saabsan wadahadallada ayaa imaanaya iyadoo uu magaalada Muqdisho ku sugan yahay ergeyga gaarka ah ee ka socda dowladda Qatar oo lagu magacaabo Dr. Mutlaq bin Majid Al-Qahtani kaasi oo la sheegay inuu dhexdhexaadinayo dhinacyada Soomaaliya. Al-Qahtani ayaa la kulmay ra'iisul wasaare Rooble, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta. hase yeeshee waxaa yaab leh inuusan weli la kulmin madaxweyne Farmaajo. ujeedka ergeyga ayaa laga bixiyay fasiraado kala duwan. taxliiliyaasha qaar ayaa rumaysan inuu isku dayayo inuu wiiqo oo uu kala qaybiyo mucaaradka dowladda, halka qaar ay qabaan in soo diristiisa ay astaan u tahay in Qatar iyo Farmaajo ay si kala fogaanayaan islamarkaana Dooxa ay isku dayayso inay saaxiibo cusub ka yeelato Soomaaliya. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Xijaar ayaa soo saaray amar ku socda ciidamada oo muuqda in lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo howlaha ay qaban karaan. taliyaha ayaa faray dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed in ay ku ekaadaan shaqadooda oo ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta iyo hantidooda si fiican ay ula dhaqmaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed. inkasta oo Xijaar uusan si gaar ah u shaacin sababta keentay amarka cusub, haddana dad xoog ogaal ah oo ka tirsan booliiska ayaa lagu soo xigtay in ujeedka amarkan uu yahay in laga ilaaliyo in ciidanka ay ku milmaan
siyaasadda. Ciidamada booliiska gaar ahaan kuwa loo yaqaan Haramcad ayaa horey ugu lug yeeshay weeraro ka dhan ah musharaxiinta mucaaradka iyo dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho. Si kastaba ma cadda saameynta hadalka xijaar uu ku yeelan karo ciidankan, sababtoo ah inkasta oo ciidankan ay hoos tagaan booliiska, haddana waxaa si toos ah looga amraa madaxtooyada oo ay fuliyaan amarada ka soo baxa iyada oo badankood loo adeegsado ujeedooyin siyaasadeed. xubno ku dhow mucaaradka ayaa iyagana aaminsan in amarkan uu yahay riwaayad siyaasadeed oo saraakiisha ciidanka ay isagu muujinayaan in ciidanka laga reebayo howlo siyaasadeed si ciidamadii ka dhashay diidmada muddo kororsiga ee ku sugan Muqdisho loogu cadaadiyo inay ka baxaan. Sababta ay ku sheegeen in amarkan uusan marnaba iman xilligii ay ciidankan ku lug lahaayeen dagaaladii toddobaad ka hor ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay weerar lagu qaaday musharaxiinta madaxweynaha. Garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo, caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed, ayaa muddooyinkii dambe laga sameynayay horumarin, waxaana dhowaan loo dhisay taawarka garoomada diyaaradaha lagu aqoonsado. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa shalay si rasmi ah xariga ka jaray taawarka garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo. Laftagareen ayaa munaasabadda xarig ka jarista ka sheegay in dhismaha taawarkan uu muddo u soo socday, waxa uuna u mahadceliyey madaxweynaha cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha taawarkan ee loo dhisay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ayaa si joogto ah waxa uga degaa diyaarado ka baxa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale, waxaana shaqada garoonkaas hadda ka duwan yahay sidii uu sanado ka hor ahaa. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ay u baahan tahay lacag gaaraysa 35 bilyan oo dollar ama 45 bilyan oo pound si ay u maalgeliso barnaamijka talaalka Covax ee dalalka dakhligooda hooseeyo ee sanadka dambe. Madaxa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wuxuu ku baaqay in laga tanaasulo heerarka lagu xiray talaalka, arrintaas oo ogolaanaysa in dalalka heerkooda hooseeya talaalka ay soo saaraan. Ugu yaraan 26 qof ayaa dhimatay kadib markii doon dheeraysa ay dad rakaab ah kula dhacday markab, waxaana shilkan uu ka dhacay Bangladesh. Booliiska ayaa sheegay in doonidan dheeraysa ay la socdeen ilaa 36 rakaab ah, waxaana ay ka timid magaalada Maawa ee u dhow magaalada Shibkar. Waxaan ilaa hadda soo helnay 26 meyd oo ah ku jirto haweeney, waxaana sidoo kale badbaadinay 5 qof oo dhaawac ah oo ay ku jiraan 3 caruur ah, ayuu yiri Amiir Xuseen oo sarkaal ka tirsan booliiska. Doonta dheeraysa ayaa siday rakaab xadgudub ku ah xayiraadaha dowladda ay saartay dalka inta lagu guda jiro bandowga COVID-19 ee waddanka oo dhan. Dad fara badan iyo dadka deegaanka ayaa 26 meyd ka soo saaray biyaha, waxayna raadinayeen kuwa weli la yahay. Qof goobjooga ah oo magaciisa lagu soo koobay Cabdiraxmaan ayaa sheegay in uu jiray sawaxan weyn markii shilku u dhacay, kadibna doonta ay rogmadeen. Markii aan ku dadegnay goobta, waxaan helnay doontii dheeraysa oo u kala qaybsan 2 qaybood. Dad badan ayaa bilaabay in ay qabtaan howlo samata bixin ah ka hor inta aysan ku soo biirin booliiska iyo dad damiska, ayuu yiri. Madaxweyne Joe Biden ayaa qaaday xadidaadda tirada qaxootiga uu sanadkii dalkiisa qaabilayo uu horey u soo rogay maamulkii Trump, kadib markii xisbiga uu ka dalbaday inuu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa. Madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga tirada la ogol yahay wuxuu ka dhigayaa 15,000 ilaa 62,500, iyadoo ay weliba dhaliilayaan dadka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga. Mr. Biden wuxuu sheegay tiradaasi yar inay ka turjumayso qiyamka Mareykanka. Warbixino bishii hore la soo saaray waxaa lagu sheegay in ay walaac ka qabaan in dad badan oo qaxooti ah dalka laga soo fasaxo, iyadoo ay jirto tiro aad u sii kordhaysa oo dadka soo galootiga ah ay ku sugan yihiin xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. Tirada cusub ee ah 62,500 waxay meesha ka saaraysaa tirada aadka u hooseysa uu horey u dejiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ayuu yiri Mr. Biden. Wuxuu sida oo kale sheegay inuu maamulkiisa uu damacsan yahay
inuu tirada qaxootiga sanadka soo socda la aqbalayo uu ka dhigo 125,000 balse wuxuu qiray Mareykanka uu dhab ahaan uu sanadkan ku guuleysan doonin inuu aqbalo 62,500 oo qaxooti ah isaga oo ku doodaya in maamulkiisu ay ahayd inuu saameynta maamulka isaga ka horeeyay uu ka jaro. Maamulka Trump ayaa siyaabo kala duwan u wajahayay dhibaatooyinka xuduudaha maamulka Trump iyadoo xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Jen Psaki ay ku tilmaantay nidaamka socdaalka uu ka tegay maamulka madaxweyne Trump uu yahay mid la baabi'iyay oo aan shaqaynaynin. Mr. Trump ayaa tirada dadka qaxootiga uu dalkiisu qaabilayay aad u yareeyay isaga oo tirada uu madaxweynihii isaga ka horeeyay ee Barack Obama uu dejiyay ahaa 110,000 oo ka dhigay 15,000 oo kaliya. Arrimahaasi kama turjumayaan qiyamka Mareykanka dal ahaan oo ah inuu soo dhaweeyo isla markaana uu caabiyo qaxootiga, ayuu madaxweyne Biden ku yiri bayaanka uu Isniintii soo saaray. intaas aynu ku soo afmeerina markaad kala socoteen Samareeb TV. inta warkan war lamdan kulmo doona waxaan idinka tegaynaa sida ay nabadgelyo.